واهبو شرف كوغو هاغوغاني عيداد واهدن عدكوها قبيشي وهاليل ديهينو هروين كو إرمانو عدكو هيرانيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو aad joogtaan asxaabta qaaliga waxaan idin leenahay happy 18 May waxaan ku suganay magaalada Jigjiga halkan aan ku suganay waa goob aad iyo aad qurux badan runtii oo aan laga sheekeyn karin dhalinyaro kala duwan oo ah reer Jigjiga ayaa ku xuseeyay 18 May anaguna markaas waan soo booqanay oo waxaan kula qaadan doonaa waqtigooda qaaliga isla markaasna waxaan ugu dabaaldegi doonaa maalinta Eid 18 May meel kasta aad joogtaan asxaabta qaaliga waxaan ku soo dhawaada waxaan joognaa koonaha magaalada oo meel aad iyo aad qurux badan isla markaasna beer kamida magaalada Jigjiga halka waxa jooga dhinacayga weyrax baa jooga maanta qarannimadii ayaan madaxa ku sidanaa waan soo dhaweynayaa bal ka waran jawigaaga iyo magaalada Jigjiga ku xuseynaa maanta ay tiimigi بسم الله الرحمن الرحيم horta dhamaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin marka xigta waxaan salaamayaa shacabweynaha ku sugan magaalada madaxda dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga inta ka sugan waxaan salaamayaa intayga dhow iyo Faadumo ugu horeysiinay waliba inkastoo ugu dambeysay waxaan leenahay in happy 18 May dhamaantiinba meel kasta aad ku sugan tihiin waxaan ku dari lahaa caalayahow ruxmaanaya raaskaaga oogada rabbi darajadiisiyo rasuulka ku qoraano ruux ka cadhoodo Somaliland rabin iyo ruushka xoogale kuma ridi karaane allumba ku rogi karaa happy 18 May leenahay ka waran maxay kaaga duwan tahay dhimeegan ay dhimeedii hore maadaama aan joogno magaalada Jigjiga waxay iga duwan tahay marka hore waxaan ku xusay wadanka dhexdiisa laakiin hadda waxaan ku xusayaa wadanka banaankiisa aan oran karaa magaalada madaxda Jigjiga aad baad u mahadsan tahay goobta waxaan la jooga dhalinyaro kale oo ah reer Jigjiga isla markaasna iyaga laftirkooda u hambalyeynaya walaalahooda ay jaarka yihiin waan idin soo dhaweynayaa waxaan la joognaa dhalinyarada magaalada Jigjiga oo si weyn u xuseeya 18 May isma wax soo dhaweynaya aad iyo aad u mahadsantahay walaal Faadimo waxaan leenahay happy 18 May aan leenahay dhammaan Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxaan leenahay happy 18 May aan leenahay mar walba saas uma idin xusnaa happy 18 May-ga dadkaygu batii anaguna idinkana idinkuna anagana tii marka sadarteed happy 18 May mar walba idin leeyahay aad baa u mahadsan tahay maxaydiin baa soo dhaweynayaa isaga laftirkiisa si weyn u xusay soo qaban qaadiyay halkan kulay dhalinyaro badan iskugu keenay waan ka soo dhaweynay aad iyo aad ugu dhawaad mahadsan tahay waxaan leenahay walaalaha jooga Somaliland anagoo joogna Jigjiga haddaynu kala maqanahay qalbigan kala xuseynaa aad qalbigan ku xuseynaa waxaan leenahay dhammaantiin happy 18 May dhammaantiin maalin gaar ah inoo tahay 18 May maalin maalmaha inooga duwan aad baan faraxsanahay idin ahaato anaguna inoo ahaanaysa wali waxa laga xuseeyaa 18 May isla goobta quruxda badneed baan ku suganay waan soo dhaweynayaa aad iyo aad bad mahadsan tahay walaashii Faadumo Riyaad waan ku faraxsanahay la joogaaga markii koowaad aan xusayna maaha marar kale badan waan xusnay imika inta ka dambeysana insha Allah inaan xusnaa rajaynayna hadii la yiraahdo kulli hadii la kala fog yahay maaha in la kala fog yahay qulubta laga wada jooga insha Allah adiga laftikaaga markan iyo marar kale badan waan ku rajaynayna inaan soo gaadho walaalahayna waxaan leenahay happy 18 May caafimaad ku gaadha kuwan sanadkan iyo sanado kale badan insha Allah khayr baan idin rajaynaa maadaama markasta xustaan 18 May-ga oo aad goob qurux badan kale dabcan ku xustaan oo isku xilqaantaan bal ka waran IDMgan iyo kii hore muxuu kala duwan wallahi horta
dee sanadba sanadka ka dambeeya ayuu maaragtay kaga sii qurux badan yahay oo sugitaankiisa baa nagu dheeraadaba iminka muddo malaha 2 bilood qabanqaabadana ku jirnay dee goormaad gaadhaysaan alxamdulilah maanta anagu cafaan qabno anaga gaadhnay insha Allah dee farxad aad iyo aad weyn noo tahay dee hambali aanu leenahay walaalaheena qaaliga ah aadna sidoo kale aad mahadsantahay hay ismaan baa mar labaad ku soo noqday maadaama uu ka mid yahay dhalinyarada laftirkooda codka macaan waxaan u maleynayaa inuu heesi loo soo noqday fanaanada aad baan u salaamayaa si fiican baan uga heesiinayna hadduu ilaahay idhaahdo isaga hadda fanaanani fanaan igu dhajiyay horta qabanqaabada aad baan u soo wadnay in badan baan ka shaqeynay muddo 4 sano ah oo hadda ka horaba sidan oo kale baan u sameynay xalfadan Somaliland laakiin maanta markii ugu horeysay aad nagala soo qayb gasho wal adiga aan ku wareysta markaa booskaaga aan istaago shucuurta bal ka waran sida aan ugu xusanay magaalada Jigjiga markii ugu horeysana ay tahay bal ka waran shucuurtaada adigu wallahi ismaan horta shucuurtada lagama hadli karo meel jibo qurux badan bayna keenteen oo dhalinyaro aad soo qabanqaabisayna dikoorka la sameeyay cajiib weeyaan indhihiina ku arki doontaan marka idinkana waa idin mahad celinayna nagu soo marti qaaday goobtana goobaada qurux badan waxa lagu xusayaa maalinta Ciidda ee 18 May asxaabteeda dhan waxaan leenahay waan faraxsanahay okay way su'aasheeda kale waxay tahay fariinta aad u dirayso shacabkeena Somaliland iyo dadkeena joogay caasimadda iyo caasimadaheena iyo magaalooyinkeena maxay noqon karaysaa maxaan leenahay waan la faraxsanahay farxaddu waxaan ku lama qiyaasi karo keligii ma idin ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan la iidisan marka lagama hadli karo ismaana wuxuu ka mid ah dadkii goobtan quruxdeeda ka soo shaqeeyay isaga iyo Maxiyadiin